حملينيا وحياهي هورا كيمو لكن مالمها نوحد عي هذا لو مثال إني كسوق هذا إسلام وادركتين إسلامي مظاهرات هي اللي كسوق هذا Soomaaliya oo ku haysta anagu Ilaahay baan caabudnaa oo Nabi Maxamed baan caabudnaa oo abbaayaan caabudnaa anaka Ilaahay baan caabudsanaa Ilaahay ka soo rasuulkeena baan caabudsanaa nabigeena Maxamed baan caabudsanaa abbaayada baan caabudsanaa inta raacda rumayso awliyada caabudsanaa ninka aan raacsanayna ma doonayna anaka abbaay ma taqaan abbaay Faadumo waa tii واي تي markay raggu ay xagga awliyada aadaan dumarkuna xaggeeda aadi jireen iyaday muxuu ahay ku tawassul jireen marka waa amaam al-mala rasuulkan caabudnaa waa abbaayaan caabudnaa cibaadada waxay tahay waxa laga yaabaa inaysan fahansaneyn waxaan isdhihi oo suurtagal ah in la yiraahdo ruuxaas waa ruux iska caamaya oo malaha waan caabudnaada waan jecelahay inuu ka wada dhici karto لكن تفسير كاسي وحسو كسو عنينين مركز علماء وحبرتي الشيخية أضو نهبط وحن واحدتك اللغو أبابية واحد إن إذا طهينا مثال بانسينا هالمثال وإذا كان السوشيال ميديا هذا كتير وذات كان اللي يراهدو معلم محمود يقول لها أهل السنة الشيخ هو أهل السنة والجماعة اللي يراه قول الله ده وحد كيه لسان محوها social media كتير طيب حرتي سيبوا قصونا يا قصوا شيء قصة اللي يابلوا عليه وعاجر لي شيخه يا شيخ سلمان لورنتي marka wuxuu ahaa nin wariga samawaadku korisay waa dhaqaaqaya markaas wuxuu yiraahdaa ya xanaan ya xanaan ya xanaan ya xanaan waa soconaya iska tagay ولكن ملكيس أها وخادم كيس أها مريد كيس أها أيها يرشيخه هنا قراعان حضر والله في القلب باقي برهاعي كلمة يوم يشهد ما يا شيخه وقراعه أيها هذا كل بدي وحي يشهد يعني لو خطا يسيني يا حنان مصر إلى هون متاعه يا سلمان يا سلمان يا سلمان إذا صدر دغا مركز يا سلمان يا سلمان يا سلمان مركز صدر مركز هولا كوري مرة يا إبليس كم يقول والله جاري واقف سو مغلي ما يسوي حولي هذيك الشيخة يا حنان قولي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أقول واحد كله واقيسا أحسن اسم كيسة ما سجد عابد ليس ورواق قالوا لي مرعابة يا حنان أقول إله يا حنان اللي يراسمك حينك وصفر فاعط كشيء سيرتي تجيب الجوب ما شاء الله مركز والله وحيي يروح الشيخ هذا مرعى هذا وكدوله مرعى إلهي لو كدولي واي حيكون عليه مرعى إلهي عارف ما كدولي هو عارف بالله أو إلهي يقال أي كدولي أنا عارف بالله ما أظن أحيي لكن واحد تباني عارف بالله لا تباني أنا قد تباني كي قد كدولي كتني أصيب لقى لقى جفسي كدولي كدنا صمارت إلهي بانكو داريه روح مسلم وجاهل بها هذا وعقيدتي أصل كل شيء هيستا ألف السادين حتى أن حبب برني ميال لقى دحين كرام مقع إلهينا كما أنفعيه كشيخ واكو أنفعيه يا ميال لقى دحين كريه وحل يابله وقال الله لي بقى قصة إبليس يا الشيطان باوحوا ليه هنين كان مريد كأه ورواد قالوا ذي إلهي مقعي سقبصو شيخينا محوليه ورمقع إلهي كتغو كيغا قبصو حتى ما إبليس با توحيد داما يا إبليس باوحوا كله ورواد قالوا ذي مقع إلهي قبصو شيخ مقعي سكتك شيخينا محوليه وركيغا محوها كإلهي كتغو كيغا قبصو حتى قصة قابك وش هيجيو إبليس إنه عقيدة دامو
waxa sida u hadlay qisaska noocaas oo kaleeta yani xataa ma dareemayo waa hal qiso laakiin qisooyinku way baday social media-na waad ka dhirgi kartaan waxa dhex yaalay noocaas oo miidhan ziyaaranaynaana sidaas weeye waxaan isxusuusinaynaa sheekhu wuxuu ahaa cilmu daahir walbaatin buu kulmiyey cilmiga daahirka ah khalqigoo dhan baa ku bartay oo waa lagu yaqaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam ru'yo uu ku arkay sheekhu oo magaalada dhuusamareeb ahay asagoo taagan sheekhu wuxuu yidhi anigoo masjidka jooga ayaa waxaa soo galay rag 4 ah oo socda oo dharcad oo nabigu u soo horeeyo calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay ku yidhaahdeen nabiga salaam markaasaan salaamay buu markaasaa waxaa soo galay 4 nin oo sida kacbadii iyagoo sida ayay soo galeen buu markaasuu yidhi nabigu u ishaaro yidhi buu yidhi meel mixraabka dhinaciisa ah yuu yidhi buu yidhi dhiga halka kacbada markaasuu kacbadii halkii la dhigay gacantu intay soo qabtay wuxuu yidhi buu yidhi dadka xajka u toosi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu intaa yidhi yaan waxaan idhi buu yidhi ma waxaa loo soo xajinayaa dhuusamareeb markaasuu yidhi buu yidhi dhuusamareeb baa loo soo xajinaya markaasaan idhi buu yidhi haddee marka la xajiyo waa tii ziyaarada nabiga calayhi salaatu wasalaam la aadi jireen ma markaa kadib baa la aadayaa ziyaaradii oo maka bahalkii madiina almunawara la aadahaya markaasuu yidhi buu yidhi maya waa la keenaya markaasaa la soo geliyuu yidhi qubbat alkhadra oo dariiqi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku jiro markaasaa dhinacii kale jaanibkii kale la dhigay macnaha sidaas ahaa wuxuu ahaa markii intaasi sugnaato saabit noqotay haddee ru'yadeedu qarow ma ahan ru'yo qarow ah ma ahan waxay ahayd ru'yo xaq ah bay ahayd waxaa jiray nin shariif ah oo wilaayadiisa ummadoo dhan isku waafaqsanayd oo khaamil ahaa oo weligiis qof wax weydiisan oo aan weligiis sumca iyo ru'yo iyo midna aan lagu arkin oo ayaan inta yimid meesha joogay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku nidhi maxaa shariif meeshaan u timid markaasuu yidhi waxaa lay amray inaan soo arko wakiilka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaan nidhi wakiilka nabigu xaggee jooga markaasuu inta cabaar aamusay wuxuu yidhi halkanaa la iigu soo tilmaamay sheekhaa markaa raqayda meesheeda ka soo baxay waa kanuu yidhi wakiilkii nabiga waa kanoo lay tusay buu yidhi aniga wakiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam هذا شيء وكيل كالنبي إنه يهي نسكاب عضينا هيا ساس درادد أمدنا وحوبة أنت هاي إن لحوريو عقلي جيدا إن لحوريو عقيدة جيدا إن لحوريو إن لقى حوريو خرافات كنوع عصو كلا وحنا الولد قال سين هنا وإنت وحنا الولد قال سين إنت هو أمدنا إن لقى دايو إلهي جي أبو تلقو حراه إلهي كلي جي بريء إلهي تلص هارته إلهي وحكرات سدا وذات كني ومخلوق أن وحبه سنين waxbana ma heli karo waan duulay wax jira ma aha samadan dadka qabtay wax jira ma aha waxaasi khuraafaadkaasi ma jiraane war khalqiyo ilaahay caabuda diintii nabi maxamed taasay la timid adiyaantii samaawiga haydna kulli mabdaasay la yimaadeen qodobkaan isku hayno waa qodobkaasi ma aha nafci iyo adduunyo iyo wax kale isku maahay wiil yar waxa ka soo baxay social media leh sheekh umal baan isku qarxinahayaa markaan isqarxiyo nabi maxamed baan u tagayaa iisoo duceeyo bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin waxaan ku salaamayaa salaamta ani waxaan ahay nin suufiya oo qaadiriya waxa isoo gaaray inuu nikliyaha umul inuu imaad doono koonis oo ku qaban doono muxaadaro anigu waxay ka dhaba maxabada nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa balan ku qaadaya ninka umulida inaa isku qarxi doono adduunyo raje kamali saaw aalo waa u ijeedin wallahi suma wallahi waan isku qarxi doonaa adiya isku qarxin adiya dhinto haliiso ducee nabiga la jirahay allahumma salli wa sallam alayhi kulli dadkii waxay yiraahdeen war wadaada inta lagu qarxin soo cararbay wadadkii asxaabta ah wadad war waxan wax jira ma aha miidiyu soo wax u bubnay wax ma jiraan